cid nooga wakiila inay guddoomiye baarlamaan doorato maadaamaan aaminsanayn in baarlamaan soomaaliyeed uu jiro maadaama waqtiga ka dhammaadeen ma jiro dadka reer koonfur galbeed yaanan la khaldin cidaan usoo dirsanay in ay nooga wakiil tahay ma laha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جنب وناكسن dadka Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya meel walba dunida kaga nooshiin walaalayaal sida la og yahay daraawiishta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya muddadii la soo dhaafayba waxay u diyaar garoobayeen haddii Ilaahay idmo sidii loo qaban lahaa degmada Baydhabo iyo koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo dabcan la rabo in laga xureeyo dadkii ku soo duulay ku soo gardarooday dawladnimadeena dhaawacay sharafteena iyo midnimadeena inta haddii Ilaahay shacbigeena meel walba joogaan waxaan leenahay dareenkiinu ha joogo Ilaahay idinkii xilliyada saacadaha maalmaha iyo gooraha soo socdaba haddii alla idmo waa laga xureyn doonaa kuwii dalkeena ku soo duulay ee duleystay dadkeena haddii Ilaahay qadaro inta kadib waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya intaba dabcan waxaan arkaynay xildhibaano ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed oo deegaan doorashadooduna ay tahay koonfur galbeed qaar ka mid ah oo magaalada Xamar ka hadlay oo sheegay inay u yimaadeen inay doortaan guddoomiye baarlamaan sida iyaguba ay sheegeen hase yeeshee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ma aqoonsana baarlamaan Soomaaliyeed inuu maanta ka jiro Soomaaliya guud ahaanba sababtoo ah baarlamaanka waqtigiisu waa dhacay madaxweynaha iyo xukuumadduna malaha maandeed ay ku shaqeeyaan waxay ku joogaan xaalad iyagu ay abuurteen labadaba maandeedku waa ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyaddana waa ka dhacay xasan sheekh maxamuud baarlamaankii sharciga ahaa ee unkanka dowladnimada ahaana beri horuu waqtiga ka dhacay ha yeeshee mudanayaasha saaxiibada nala ah ee reer koonfur galbeed oo laga doortay labada gole iyagu xaq bay u leeyihiin wax allaali wixii ummadda Soomaaliyeed ay qabto inay la qabaan sida la sheegana mar dhowna la dooran doono guddoomiye annaga cid nagu matasho ama aan u dirsannay ma nooga wakiila inay guddoomiye noo doortaan haddaan nahay dowladda koonfur galbeed shacbigeeda iyo dowlad ahaanba ma laha waxaa laga yaabaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed ee deegaan doorashadiisu ay tahay koonfur galbeed inuu sheegay in uu wakiil kaga yahay dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen idaan usoo dirsannay u wakiilanay nooga wakiila ma jirto iyagu dee waxbaa dooran karaan waxna waa diidi karaan xaqay u leeyihiin annaga reer koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ku taagannahay wacadkii aan dadkeena la gallay ee ahaa inaan ka dulqaadno dulliga iyo gumaysiga duulaanka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu ay ku soo qaadeen qowmiyad ahaan dadka reer koonfur galbeed dowlad goboleed ahaana jiritaankeena dowladnimo ay ku burburiyeen markaan ku celinaynaa cid nooga wakiila inay guddoomiye baarlamaan doorato maadaamaan aaminsanayn in baarlamaan Soomaaliyeed uu jiro maadaama waqtiga ka dhammaadeen ma jiro dadka reer koonfur galbeed yaanan la khaldin cidaan usoo dirsanay in ay nooga wakiil tahay ma laha dadka Soomaaliyeed meel walba joogaana waxaan leenahay walaalayaal sida la og yahay dhowr bilood ka hor baa dadka reer koonfur galbeed duulaan lagu soo qaaday la baabi'iyey dowladnimadooda la baabi'iyey qarannimadooda la isku dayay in jilbaha dhulka loo dhigo ha yeeshee taa waxaa diiday geesiyaasha ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya oo har iyo habeenba u taagan inay dulligaas ka dulqaadaan dadkeena waxaan ognahay magaaladeennii sharafta banneed ee Baydhabo ahayd horumarkii ka socday dowladnimadii ka socday intaba inay istaageen waxaan ognahay nolosha reer Baydhabo ay cidhiiri ku jirto la baabi'iyey dhaqaalihii yaraa ee lacag Soomaaliga ahayd sidoo kalena lala dagaalamay jiritaankooda sidii ay nolol u heli lahaayeen waxaan mar laba aqbalaynin shacbigeennana aan u sheegaynaa cid walboo soo gardaraysata dadka reer koonfur galbeed waxaan leenahay taariikhda dib u raaca inta duulaan lagu soo qaaday koonfur galbeed cid ka guulaysatay cid sharaf gooni ah ka gaartay ma laha iyagoo dulaysan wejigabax uu ka dhacay ayay ka laabanayeen cid kastoo kusoo duusho deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kuwa midabadeenna leh luqadeennana ku hadla laakiin lasoo isticmaalay oo lasoo adeegsada waxaan leenahay ilaahay idinkii waxaad mari doontaan duulkii idinka horreeyey ee lasoo adeegsan jiray meeshii ay mareen biidni illaahi tacaala Baydhabo iyo koonfur galbeedna waa ay xoroobi doontaa haddii ilaahay idmo ballankan dadkeenna ka qaadnay ilaahayna la galnay shacbiga Soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed aan u sheegnana
marna ma baaqanayo baydhabana waa xuraynaynaa koonfur galbeedna waa xoroobaysaa waxaanan xaq u yeelanaynaa sida dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland iyo reer puntland iyo reer somalilandba ay u diideen in la dullaysto inaanan marnaba oggolaanin deegaanadeenna dadkeenna in la dullaysto oo la yidhaahdo waxaan annagu idin qarro mooyaane xor ma tihiin gob ma tihiin isma maamuli kartaa horey aan u diidnay maantana waa diidaynaa berrina waa diidaynaa ilaahay idin mar labaad iyo mar saddexaad dadka reer koonfur galbeed taageeradeennu waa inoo muhiim garab istaagaynu waa inoo muhiim hadduu alla idmo baydhabana waa xoroobi doontaa goraha ugu dhow iyo xillada soo socda haddii ilaahay idmo shacbiga reer baydhabo mar kalean ku celinaynaa kuwa dullaystay xaafadihiinna ka dhigtay dhufeesyada guryihiinna burburiyey doolaalka idinkugu yimid oon deegaanka idinla ahayn ka saara xaafadihiinna bannaanka isaga saara ku mudaharaada ka bixiya xaafadihiinna haddaad iska bixin weydaan ballantii aan gallay oo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya inay idinka saarayaan aan idinla galnay waa idinka saaraynaa waana xoroobayaa waana ka saaraynaa xaafadaheenna magaaladana waa ka saaraynaa dowladnimadeennii amnigeennii kala dambaynteenii iyo gobonnimadeennana goordhow waa soo laaban doontaa haddii ilaahay